arjeenha ya sacbina ku soo dhaweysaan insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. horta aqoonyahan oo baan ku sheegay inta kale waa sax leeyahay la yiraahdo iska dhig laakiin aqoon ma jirto runta fiican waxaan jeclahay xaqiiqada ka hadla badana inaan been sheegan waa dhibeen in wax aan ahayn aan ku faano waa dhibeen marka iyada labada laftooda oo dhibay keenaan oo dadku waxay jecel yihiin inaad xogaa wax ka farxinayo been baa taa u sheegtid laakiin taas aanay dhibay iyaduna waa ku mahadsan macadkan maalin dhaweyd waa ii sheegeen laakiin dib iguma soo naqan hadda anoo magaalada joogaa la yiri shirka ma imaanayso war shirku wuxuu ahaa kiina waa imida markii horta aniga waxa laga hadlayaa waa taariikh historian ma ee economist anahay historian ma ee laakiin waxaan ku dadaalay maraa waxaan ku fikiray historianka ina xogaa bushsiyo inay taariikhdu wax ka qoraan waxay u khasabtay taas in taariikh badan aan soo koobo si aan jaalis u siiyo dadka cilmigaas aqoonta u leh anigu waa khaldi karaa maqaalaad badan marka isku day inaan ka qoro maanta waxaan ku faraxsanahay taariikhda geladiga oo wax badan ka qoray in buug dad ay ka qoreen iyaguna ana markaan ka faa'iidayo buugaas ka geladi oo dhan adduunka saddex qof ka aqaan waa laga yaabaa kuwa aan aqaano geladiga laakiin dad isaga aqaano si kale isku ciyaal xaafada inay jiraan waa dhici kartaa historyga marka waxa la yiraahdaa taariikhdu waa xoghayn eeda badan taariikhdu waa xoghayn eeda badan waxa loo yeeriyo qortaa bis qof imaanaya wax uu iska qoraa dictate eeda qof qalinku kuma dhahay waxa khaldan khalad badan in la qoraayo ayaa ogahay marka ma haddaad akhriseen maqaalaad waxaan ka qoray 5-6 dhan geladiga waxaan qoray silcis waxaan qoray moobleen waxaan qoray goobroon garaan qoray wacdaanaan qoray biimaanaan qoray ujuuraanaan qoray aw nasiib bunda xataa jareero la helmaamo waa ku soo daray kulligood maxaa ugu khasbaya xasuusi dadkan oo maxaa tiri waa been ruux waxay isku qasab waxbay qoraan laakiin ay may waa meesha dhimatay wax laga qoro taariikhdeeda ma leh aniga reer galguduud ah maxaa ugu khasbay inaan may wax ka qoro xarta reer shii calmay ahayno iyaga iskool soo doonan jirna axmediyaan ahay safiina qof akhri karta looma joogin waa la soo jiscimay markuu imaanay jaamacadda shii calmay oo ka soo baxay kadib uu noo imaanay noo akhrinay hadda usbuucan America waxaan ka sugaa marka shanaad kitaabo axmediya America laga helaa bis asalkii axmediyada waxa la qoray waa sida saaxiibkii Umar u sheegayo isticmaalku wixii ilay qaateen kitaabada asalkooda iyo carabi original hada la soo qoray waxba laga bedel intaas meesha ku kaydsanayeen buugan marka ana hadda soo gata $12 kala soo baxay sadaqa lagu basiinaa asliina kuwana la siinaa ardada afgooy loo dhigaa jeclaalahay kuwa afgooy jooga ba aqaaninba taariikhdooda ummadii kale barka waran male ka taariikhda maanta bari beena laga qoraa adoo hadda jooga been laga qorwaaya hadda adoo soo taagan lagu leeyahay dawladda ka samaysay gobolkaas doorasho xuraha ka dhacday baydhabo ka adoo taagan lagu sheega kan birino aan nooleen maxaa u maleynaa taariikhda runta inaad raadisiin aad ku dhiirigelinaa oo tambeenta aan la dilqsin galadi boqortooyada galadi qabiilayaad simple umada kale loo ku noolaa laakiin ninka xukuumada qabiilo ah 20,000 oo ciidan oo waqtigaas joogto isku leexsada qoraalada ku arkartiin waliba marka oo baardheer iyo ku duulaa emergency ay timaado waxaa jirtay 30,000 oo ciidan oo kayd ah 50,000 oo ciidan oo dhaqaaji jiray boqorkaas dawladeennuna maanta waxay dhaqaajilada 15,000 oo in Soomaaliya ee baadiyo jooga ciidan waa qiyaas kartaa raashinkooda logistikada ugu daran waa lugeynayaan afgooy ka dhaqaaqan ilaa baardheer xuduudka Kenya laga soo celiyo haddana inta u fideen 50,000 ciidan oo dhaqaajinaya adigu maanta waa sameey kartaa laakiin aan u qirno boqorkaas oo galadiga ahay inuu naga raganayo badnaay jiilkeena maanta joogo macal dawladeena maanta joogto xataa maamul goboleedyada ku dar konton kulmaysan si konton kun hayst historyga waa la baabiyo waran سيد برقش مرة أنت كلها وأردت المعهد ميوزيوم كوش سيد برقش متحفك وحقال جرى دركيسي قلبك وكنت قال ما يل سرير تيسياتيل
mid oo wadanka Cumaan waxaan isku aray London markaas wuxuu yiri waxaan rabnaa inaan dayac tirno guriga Sayid Barqash intee laga helaa qalabka iyo sariiraha iyo wax horta waxa sariir u kaadayay sariirta lugaheedi shaah ku karsanay daba laga dhigay xamar weyn ayaa jooga Salaamaan maano isla Salaamaan oo banaanka shaah ku karaysa hadii qori weysa beledka ilaa lama soo xakarin lugaha amar xamar hana qato sariirta Sayid Barqash oo qiimaha ay joogi kartaa qiyaasiis anaga waxaan ugu fadhiidana sariirtaas afarta lugood iga soo jebi shaah loo fadhiyo adaba ku shidan ani taab waa dhacdana waxyaabo ka muhiimsan Sayid Barqash sariirihiis hadda waa raadinayaa Cumaan mana boqolaal lacag ku raadinayaan anagana shaah ku karsana mar hore historyga hal ilaaliyo markii taariikhda waa in la dhowro xasaasiyadana laga daayo waxa hadda daa'ira magaaladan waxa jira buug leeyahay Muqdisho waqti kacanka la qoray first page waxa ku sawiran Maxamed Siyaad bogga labaad waxa ku sawiran Abu Raas oo duq magaalo ahay gudaha waxa ku qoran saldanatu abqaaliyuun carabi ku qoray 14 boqor oo abgaala oo isku xigtay oo magaalada xukumaysa haddaan maanta waxa ka qoro xasaasiyada maana abgaal ma magaalada xukumaya xamara sheegarta miya what this is history أنا ما قرر محمد سياد وقت كيسال قرر أفريد طبعا بقر هبل أكو قرر واي أظن كره هيستوريكاس قبيل ماله وحاس كله سومالي ولا دد بريكاس نولاي لو شام بقول سنة كور نولاي سو حكومة سي أهاية أفريد طبعا كسي إسكون دلين مجري ما لا قارن حلولي هبل أو ناك لقى حوجي ولا الكيس كخاتة وقبيا أيه وحويري سكولك كو حافظه كله تقانين سومالي دحده marka nooc oo historical discrimination inuu dhaco waa khalad in history la kala sooco aad qori karin adiga xasaasiyada laga qaada hadda qabiilka hadda qabiilada qaar xalale oo qabiilad aqoonyahan eelamido gobol kala jooga ka hadlayo waa loo sacbira maxay taas waa wax la abuuray استعماركنا أبوري سومالينا أي سي أبورتي أيام فرح قرر إنه ما أنت جوجا فعلا جامعة موضوع فرح بعله إيه هاي موضوع وحنسود دياري حسب شو تكسبس وسد حكون دور بقولوا سنة كور بقول كي لقى عسنا حابته كسوجا أي ماشي كسورن دمار سعرتها بقرد وأصلا هذا بور إنكستو إيران بورات الحنون هذا ولا إيران بقولك أتيا الليجر بقرد بقولك سد كل سنة كور حسب شو إلا جرع سنة بنتلاند جيس كده جوجي دتكو أنت كيمة دينا سيدا كو قرن دربي على الأقصر مصر وحال الليجر بقول بروح الراجع قبلها سوبود أبقى المشي بجوجي نيتري وريا كوير يا كوير أبقى له هاي أبقى إنه الله دعكرت وربرحان إنه هاي markii la calaamasaaraay caaniyo lagu shubaa dhici karto waraaga waxa loo yiri waxa inuu dib ka dhashay laakiin magaciisa toos loo ataagay barxu raaga ma 3 sano ka hor Puntland joogay aniga ma dhihin xasab shuuda darbigeeda ku qorto oo faraacinada ahayd way waxa dareemay marka some of the histories-ka taariikhaha qaar in xoogaa la cariirinayo yahuudda waxay ku mahmaahaan ummad haddaad rabta inaad xakunto taariikhdeeda baabi'e qofku hadduu ogyahay boqortooyo iyo wax adag iyo xukun inuu ka soo jeeday hore wuxuu ku fikiraa inuu isticmaal iska celiyo oo meeshii ugu noqdo laakiin haddii aad tidhaa haddaad kow tahay wax gadaaloo ka fikiraya male dadka marka taariikhdooda in la dhumiyo ay u badan tahay si ayna u xasuusan boqortooyo xoog leh inay ka soo jeedaan reer Sheekh Aadan Madow waa u badan taariikhdooda cagtaana mari hadday ilmahooda wada ogaadaan inay boqortooyooyin waliba taariikhaha qaar ma qiyaasi kartid ay lahaayeen reer Digli Marifle iyo waqtiga ay lahaayeen si waqtiga u fikirayeen waxaa la yiraahdaa mar Digli Marifle Soomaaliya oo iga haysan jiray hal dabagaale ma maqasheen baa la yiraahdaa maxaa laga wadaa dabageelle Soomaa dabageelle ma dhahnay waxaa la yiraahdaa dabagaale iyaguna maxay yiraahdeen gaal kacyo buurta baargaal maxaa laga wadaa buurta fikteeda waxay og tahay gaal abgaal maxaa laga wadaa abgeelle kelmadaha oo asalkooda oo ka yimid raxaweyn ee laga isticmaalo Soomaaliya oo dhan say ku gaareen
there some sort of literature kooda in la qaatay ama inay xukumi jireen hadaa ina maanta baargaal waxa joogi jiray boqor oo marifla reer Puntland way tumaayaan war how it's possible adiga geela batraa maxaa u dhaweysa baargeel maxaa u tir baargaal kelmada inta ma wala isweydiina waxyaabo badan history in la isku mahayo oo taariikh umadar ay lahayd China magaalo oo xariirta lagu sameeyo oo u dhow Beijing tagay kaza xasir warshadii iyo duudadii laga sameeyay baal tarxiih oo baasha dhal xariirta ay wixii arkay xaladahan wuxuu joogaa 200 kun sariirta mid sariir oo xariir ku wada goglanta 200 kun wariya iibsada waxa iibsada boqortooyinka oo imaaraadka iyo dadka qaashada ruuxaana facility kasaka lagu tiro waxa naqatay waxyar oo xariir oo duqda ugu faana marka xamarta aan gadana hal shaasho yar raqiis lagu siiyay $400 aan ku siiyay leeyahay darbiga maxaan ku arkay markii waa soo qaaday duqda farxada xariir oo gaday alla yaabina darbiga fiiriyay waxa ku taala ruudka xariirta la geey jiray oo ka soo baxay China maraayo Zeylac imaanaya warshiiq xamar baraawe waxa loo soo iib geey jiray xariir awooyaasha ku dhalay waxa ugu soo dhacday marka xariir la bis jireen ana maanta maxaa wataa hudhay korma u kacnimo soo kacnay hudhay ayaa shaad kan ma ko kale $5 ka soo bixiya fridod kan gato hudhay waa runta fiican laakiin awowgay waa ka faanay wax hudhay meel laga keeno una aqaan xariirta shiino la bisanay baraawa iyo marka xariir laga la bis jiray maantana جلباب هودي واجرة سروال هودي واجرة وحنا واجرة ألا أنا موتي بكا ما بدنا هيستوري ما رتا أسكو شغلة في عمل والله توانتي اللي يسمونه والله ما تلمع على كور قال إنجليز أو شغال مدة على شغال هي كلام كور يجي شغال لما كانوا سومالي هاي قبطان ولكن سواء سيكور ميرا عودا أداد إيمانيس نيروبي أنواع إيمانا ما حاول مانا ما أسلق قديرين بس iskay maadayeen wuxuu ii soo qaaday frame intaan oo kala frame weyn oo sawir oo dhalale gacantu ku wada war maxuu yaa kan ma kaan go'ma gali daarad gacanta ku soo qaaday ani waa naxay marka xamarse uu qaaday mar rabana ma dhigi kartid boorsadii kaan go'o guriga laptop garabka ku wada waxaan see u qaaday waa furiye wallahi guriga uu yaala bal mashay waxa ku jiro doomankii hore ee Soomaaliya ganacsiga la lahaa jiray iyo waxa ay qaadi jireen iyo waxa ay keeni jireen ruudka ay mari jireen iyo sawirkoodii baa lagu duubay koo kale lagu sii duubay koo kale la gali ma furaysa usoo dhibsanay hotelka ugu matiin kartid hadda markaa keenay ila fiicnaad historyga saas uu dhowraa inuu iga farxiyo ani waxa iga fiicnaad waxa inoo kale inuu ii keeno oo fulo jaabka isaga soo ridi karo asna frame oo historyga ah oo ii keeno dhalinyaradiina marka waxaan leeyahay ana inta badan macallin oo xataa rasmi waa iska ilaali macallin baartay u badan hadda bootoma jaamacadda waa taqaanay London School of Economics waxa Yurub uga jirtaa meesha uga jirto Harvard Mareykanka 2 months ago waxay ga codsadeen shaqo overseas consultants lacagtooda yareed xogaa anoo ismacnay waa diiday inta fiican كوا يرجع موانته London School of Economics ما ديده جامعة مقعدة كأقدر والله لا مصر العقلانة وشقيلها ما كده وكوا قلاد وهاي هذا قد جاء بينهم 6 pages contract إلى قليل الله أنت جوه هذا ما الكل واحد بركة أنا لو بركة هل أرضي وسوق قرية إلى هذا أرضي يعني هو إسلام كنت نجره أمريكان هو PhD ديارنس هل وسوق قرية أنا كمان كأدي اللي جوجنا هذيك dhalinyaradu maxay dhahnaa waa mustaqbalka berito baa mustaqbal ma tiidin hada mustaqbal naqatiin waa balad ku khasaaro maanta tihiin adig mustaqbalka beri waxa ah ilmahaaga 1993 mid Cornell oo xamar xabadii markay bilaadeen ka qax baydhabo u tagay baydhabo soo joogo iskuulku u dhiga jiray agtiisu degay iskuulku waxa la nin siyaasi ka khudbeynaa maanta iskuulku uu galay wuxuu ugu tagay nin siyaasi oo dhalinyaro 10 jir ah oo dugsiga hoose dhiganaysa la hadlaayo oo la mustaqbalka berito waa adig
wuxuu soo xasuustay 40 sano ka hor asoo iskoolka dhiganay ninka laftiisu inuu yiri mustaqbalka berrito waa adiga asiga wali soo taagan warayaan leeyahay ku sirin berri mustaqbaltiin hadda waxa qabowysa ma qabanaysid mustaqbalka berri waa ilmahaaga adiga ma adiga anaka maalin aan naqanay maalinkii ka soo reey cali maxaa lagu dhijiray shayada madooba ah si galaari si jiray حاضر أنت حاضر حتى واحد قبويس نفتاذ البرو قبوميس المها جرو قبوميس يعني لو قلنا المركب مستقبل وأذيك مركب الأولية ما أنت له قفصي الرواة ترى بريء أنا مستقبل كبريء أكوفات والبريء قضية إياها برضوها ما أنت واحد تروي يصير واحد بتلس إيجار على هذا عبرة هيستوريان لكن أكون فرح سنة يبون كان هنا سوء يبسدي هذيك لو هذه الرجال هنا سوء يبسدوتين waxaan ballan qaadaa in akhriyo si aan u ogaado shantii maqaalo hore aan ugu qoray galadiga waxay iga maqnaay waxa aan ku saxnay waxa aan ku qaldanay waana mahadsantiin